लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे haddaba branks ma wax dhaba mise waa wax beena qof inta albaabka lagu qaraaco guriga lagu gubo taas ma haqa horta Soomaalida bariyaan waxay u bateen brankiga noocaas inay sameeyaan haddaba rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qof bin aadan ina kan xisid waa xaraan marka maanta waxaan idin soo gudbinaynaa muuqaalo ka duwan awal hore waxaan soo gudbin jirnay cartoon of Soomaaliya maanta waxaan soo gudbinaynaa brankiyadii Soomaalida kuwaasheen oo qaarkood sababay dhimasho laakiin ummadan waxa waaye ummad cadaana gaala cadaana waaye macnaha waxa waaye dad ajnabi ah marka Soomaalida waxaan ku baraarujin lahaa brankiyada noocan oo dhimashada inay iska ilaaliyaan haddaba muuqaalkeenan bilaabaneynaa hadda kanaalka ku cusub tahay hal abuur Soomaali like no sar subscribe na nagu dhiirigeli waa dhiirigelinteena aad u mahadsantihiin Ryan Wilson waa wiil ardaya waa la dilay markuu isku dayay qolo tuuga inuu baran ku sameeyo haddaba meeshuu baran ku sameynayeen waxay ahayd Chicago magaalada dhexdeeda dad caadi ayuu baran ku sameynayay markii dambe wuxuu u imaaday qolo tuuga ah oo meel wada fadhida wuxuu ku yiri waa waqtiga dhiman laheedeen diyaar u noqdayna dhimataan kadib jeebkiisa ayuu ka soo bixiyay daawada madaxa la marsado macnaha daawo madowey soo jeeb ka soo bixiyay ciyaarina ka ahayd nimankii tuugada ahaa intii hanaaqeenay madaxa xabad ka geliyeen 5 mar meeshaasuna ku dhintay waa brank halis badan tuugadina waxay dhaheen cunugan wuxuu ahaa nin tuuga saasan ku dilnay sheekadan waxay ahayd brank bisina ahayd Pamela Lal waxay ahayd gabar yar oo 20 sano jirta cidooda ay caawin jirtay familkooda dhamaan haddaba maalmaha kamida waxay brank sameynayeen ayada iyo walaalkeed ka yar oo 15 jir ah kadib gurigii brank ku sameynayeen xabado qadiim oo xaafada yaalay ku ciyaarayeen macnaha xabadahana way cabeysnaayeen kadib maalmaha kamida waxa dhacday ayagoo brank sameynay walaalkeedii ka yaraa inuu xabad ka geliyo madaxa muuna ogeyn xabadina ku cabeysnaad meesha Pamela na meeshaas ay ku dhimatay waan ka xunnay Andriana Broadway waxay ahayd gabar 15 sano jir ah waxay brank sameynayeen ayadii asxaabteeda maalin waxay aadeen meel keen ah waxayna wateen darawalkii waxay ku yiraahdeen gaariga waxa noogu dhex jira ukun iyo baasha musqusha lagu galo iyo kareen kadib si kadisa nin u soo baxay gurigu ka soo baxay ninkii darawalku dhaawacay gabadhina madaxu xabad ka geliyay gabadhina meeshii ku dhimatay aadan uga xunnaay runtii haddaba Aaron Matthew wuxuu sameynay brank maalmaha kamida asagoo saaran tareen ayuu wuxuu isku dayay tareen soconaya inuu ka boodo kadib wuxuu ku dul dhacay koronto meesha taalay kadib lugtu gacmaha meel walba ka gubtay kadib cusbitaal loola carray 2 saac kadib wuu dhintay aadan uga xunna runtii waa brank halis badan